kusoo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin sharaxi doonaa anigoo soo koobaya filim Maraykan oo action ah ee kusoo biir kanaalkeena muuqaalkan Lexar Fariskod Academic waa hay'ad sir ah oo dawladdu wado taasoo gabdhaha yaryar lagu tababaro si ay u noqdaan dilaa madaxa hay'adda oo lagu magacaabo Hadman wuxuu soo qaataa carruurta marka ay yaryar yihiin xitaa iyaga oo 10 bilood jirin si uu u baro dhammaan waxyaabaha nolosha ku saabsan isagoo ka jaraya warbaahinta dibadda gabdhaha Fariskod Academic waxaa loo tababarayaa inay noqdaan mashiino wax dira waxayna bilaabeen inay rasaas wax ku toogtaan ayagoo 3 sano jir ah iyagoo isticmaalaya qoryo ka dhaadheer jirkooda markay 5 jir gaaraan waxa ay bartaan wadida gawaarida waxayna sanad gudihii u bartaan si xirfad sare ah waxayna uga qayb galayaan tartanno maalin kastana waxa ay bartaan tababaro noocyada kala duwan ee gacanta si marka ay qaan gaaraan loogu adeegsado howlaha halista ah iyagoo aan cidna ka shakin xeerka goobaad ee Hadman ku adkaysto waa inaan xiriir la sameyn sidaa darteed inkastoo ay gabdhaha dhalin yihiin agoon looma ogola inay xiriir sameystaan magacyana looma bixin waxa kaliya ee loo yaqaan waa lambaro ardayga hadda ugu fiican waa lambar 83 si fiican ayay wax u toogataa dagaalkeeduna waa midka ugu wanaagsan laakiin xeerka xiriir la'aanta waligeed macna uma yeelan maalin gabdhaha waxaa loo dirayaa howl ah inay qalin ku muddo bombele la buufiyay inta kale way sameeyeen laakiin number 83 sidii la rabay uma sameyn Hadman ayaana tusaale xun ku tilmaamaya wuxuuna ka jarayaa madaxa bombelaha 83 waxay dareemaysaa murugo iyada aan ku faraxsanayn waxa socda waqti kadib way kortaa waxa ayna noqotaa dhalinyarnimo iyadoo leh xirfad dagaal oo aad u sareysa tartan weyn waxa uu kala dhaxeeyaa number 84 oo mar kasta labaad ka noqoto wax kasta 84 way nacabtahay 83 xitaa way dil leeyahay haddii aysan halkoo ka wada shaqay lahayn 83 waa midii ugu horeysay ee fasalkeeda la howlgeliyo taasoo macnaheedu yahay in howlaha halista ah loo diray ka hor fasalkeeda ayada 84 kuma faraxsana 83 waxay aadaa howlo badan maadaama ay gabadh dhalinyaro tahay cidna kama shaqaysan inay tahay sirdoon waxayna si fudud u dhameystirtaa howlaha taasoo Hadman saacid uga helay laakiin weli waxay u han weyntaa inay ku noolaato nolol caadi ah oo dhalinyarnimo oo aysan weligeed helin hal howlgal ayay ku aragtaa dhalinyaro ku raaxaysanaya xaflad taasoo ay ku ogaatay in nolosheeda aysan caadi ahayn waxa ayna weyday carruurnimadeedii mana doonayso inay sidoo kale dhalinyarnimadeedii dhamaato 83 waxa ay go'aansatay inay ka baxsato xarunta iyo mas'uuliyadeeda laakiin ka hor waxay rabtaa inay ogaato sida ay tahay nolosha caadiga ah waxayna bilaabaysaa inay xog ka ururiso nolosha dugsiga sare iyadoo daawanaysa filimada markasta ay howlgal gasho waxay iibsataa joornaalada iyadoo si qarsoodi u akhriso maalin Hadman ayaa qabta iyadoo joornaal akhrinayso xilli uu ku wargaliyo howlgal halis ah wuxuuna ku amraa inay feejignaato maadaama howlgalka xiga aad u khatar badan yahay Victoria oo ah ganacsatada hubka iyo haweeneyda ugu khatarta badan maafiyada ayaa laga arkay magaalo 8 saacadood ka hor waa in lagu qabtaa nolol muddo 2 maalmood gudahooda 84 waxay rabtaa inay fuliso howlgalkan si ay u kasbato Hadman laakiin 83 ayaa loo dirayaa Victoria waxaa lagu arkay goob dhismaha ay la joogto 3 maxaabiis ah si kadiisa maxbuus dumar ah ayaa muujisay inay tahay 83 dagaal degdeg ah ayayna gashay waxayna ka adkaataa kooxda Victoria ugu dambeyntii waxay ku xirxiraysaa xarig oo ay kor ugu jiidayso diyaarad u socota iyada iyo Victoria kor ayaana loo qaaday laakiin Victoria waliba soolad ayay haysataa 83 waxa ay goosataa xariga iyadoo ku dhacday webiga halka Victoria lagu jiiday diyaaradda Hadman markuu ogaado maqnaashiyaha 83 wuxuu isku dayayaa inuu la xiriiro laakiin ayadoo iska nasartaa iyadoo ogtaan inay tahay fursadii ugu dambeysay ee baxsiga waxayna iska tuurtaa saacadii sirta ahayd Hadman waxa uu ku dhawaaqayaa in la tirtiro xogteeda intaas kadib 83 waxay la baxdaa magac cusub oo ah Megan waxayna ku biirtaa dugsiga sare ee Newton waxayna la noolaataa qoys ay ka heshay internetka qoyska waxaa kamid ah hooyada Mrs Lare iyo wiilkeeda Bakar iyo gabadheeda Lisa ma jecla imaanshiyaha Mega wayna ku adagtahay inay la qabsato wayna la yaabaysaa farxadda Megan waxyaabaha caadiga ah sida baska iskuulka hooyada darteed waxa ay go'aansataa inay caawiso maalintii ugu horeysay iskuulka Megan waxa ay xirataa dhar qosol badan oo indhaha dadka dhan soo jiita dhowr daqiiqo kadib wiil buuq badan oo la yiraahdo coach ayaa ugu yeeraya cunto cusub iyagoo ardaydu qoslayaan si ay uga farxiyaan Lisa waxa ay siisay dhar fudud oo midabo badan lahayn xafladda subaxnimo ka hor inta aysan fasalka aadin Megan waxa la rabay inay khudbad ka jeediso taabuurka iyadoo lagu soo dhaweynayo masraxa ka hor inta aysan masraxa fuulin waxay la kulantaa wiil yar oo tiknoolajiyada jecel oo lagu magacaabo Roger kaasoo maamula qalabka bandhiga muusikada ee iskuulka iyadoo ku saleynaysa filimada ay daawatay waxay si toos ah u bixisaa magaca net markii la soo bandhigay ardaydu way caayaan waxayna ugu yeerayaan magacyo caaya qaar badanna way ku qaylinayaan ayagoo u sheegaya inay u noqoto Canada halkaas oo ay sheegtay inay ka timid laakiin markii ay qayladu sii xoogaysato hogaamiyaha kooxda muusikada ee iskuulka oo la yiraahdo Cash ayaa ka dhex qaaday hees Cashna waa wiilka ugu caansan iskuulka waxaana jecel gabdho badan Megan isla markiiba way la dhacdaa inta lagu jiro qadada kooxda Jib Leader ayaa ku casuumay inay la cunteeyaan laakiin way ka diidaa iyadoo u malaynaysa kuwa shar leh sida filimada ay ka aragtay fasalka biology-ga waxay mar kale la kulantaa Roger waxayna noqdaan saaxiibo wuxuuna u muuqdaa inuu xiiseynayo laakiin Megan waxay indhaha ku haysaa Cash maalintii xigtay Megan waxaa lagu daray shaqada shaybaarka Cash gabdhaha kale waxay rabaan inay ay ku raacaan maadaama dhammaan gabdhuhu jecel yihiin Cash kadib fasalka waxay Megan u sheegaan in Cash uu jecel yahay gabdhaha ciyaara astaanta iskuulka sidaa darteed waxa ay tagtaa tartanka astaanta iskuulka isla markii ayaana la doortay waxayna bilaabaysaa tababar ciyaarta oo socota intii lagu guda jiray tababarka koox rag ah oo wajiga duuban ayaa ku soo orda ayagoo isku dayaya inay afduubtaan Megan waxay adeegsanaysaa xirfadeeda dagaal si ay si fudud u garaacdo
taasoo dadka ag jooga yaab ku noqota. Waxay markii hore u maleynaysay ciidanka uu Hadman soo diray, laakiin waxay ogaataa inay ahaayeen wiilal ka yimid jaamacad kale oo qalqal abuuri raba bis. Ka hor intaysan fahmin, dadka oo dhan waxay ka duubeen muuqaal, waxay geliyeen baraha bulshada, taasoo argagax ku noqota. Dhanka kale, saldhigga Prescott, Victoria waa la hayaa waana la wareysanayaa. Victoria waxay og tahay habka Hadman ku shaqaaleysiya ilmaha yaryarka inay qalad tahay, wayna ku canaanataa, laakiin waxa uu ku adkaystaa inuu sameynayo danta guud. Victoria waxa ay muujisaa xiise gaar ah oo qabta 84 iyadoo qorsheynaysa inay iyada ka faa'iideysato si ay u baxsato. Markay ay arkaan muuqaalka Megan oo viral noqda, waxay u maleynayaa inay hadda u shaqeyso kooxo kale oo cadow ah. Maalintii xigtay iskuulka, qof kasta waxa uu ka hadlayaa xirfadeeda dagaal. Hal habeen gudihii waxay noqotay gabar caan ah markii Cash uu ku casuumo tababarka kooxda muusikada ee iskuulka. Intay halkaas joogto, waxay la sheekaysataa Roger waxa uu jeclaanayaa shakhsiyadeeda, wuxuuna dareemayaa inay wax badan wadaagaan. Laakiin Megan waxay indhaha ku haysaa Cash oo kaliya. Meganna waxaa lagu casuumayaa xaflad weyn oo coach ku qabanayo gurigiisa. Megan aad ay ugu faraxdaa maadaama xaflado noocan ah kaliya ay ku aragto filimada. Markay guriga ku soo laabato, waxaa afduubta rag ka imaada Prescott. Hadman waxa uu maleynayaa inay la shaqeyso cadow, mana rumaysna markii ay la hadashay. Waxayna ku tiri, waxaan rabaa inaan ku noolaado nolol caadi ah. Wuxuuna ku duraa daawo qofka waxa qalbigiisa ku jira sheegay. Waxaana ogaanayaa inay run ka tahay hadalka ay ku hadle. Wuxuuna ku amraa inay ku soo noqoto saldhigga 2 maalmood gudahood. Maalintii xigta markii ay la kulanto Roger, waxay ku casuuntay xafladda coach, laakiin isaga aabihii waa adag yahay, uma ogola xafladda. Sidaa darteed wuu diidaa. Fiidkii, Megan waxa ay tagtaa xafladda iyadoo Lisa la socoto, maadaama hooyadeed ku qasabtay. Si lama filaan ah, 84 oo Hitler la baxday ayaa joogta halkaas. Megan waxay u maleynaysaa inuu Hadman u soo diray si ay ula socoto, laakiin Hitler kama jawaabto. Roger isna wuu yimaadaa isagoo raadinayo Megan, laakiin wuu niyad jabay markuu arkay iyadoo la joogto Cash. Dhamaadka habeenkii, waxa uu weydiinayaa inay noqoto lamaanihiisa. Subaxdii xigtay, Megan waxa ay fuushaa baska iskuulka isagoo darawalku isqariyay, laakiin waa Hadman. Wuxuuna u sheegayaa in Victoria ka baxsatay, qorsheynaysana inay ka argoosato. Wuxuuna ku casuumayaa inay ku soo noqoto Prescott. Meganna way diidaa. Kadib, iyadoo la socota Lisa una socdaan iskuulka, laakiin waxaa dabagalaya askari wejigu u duuban yahay. Inta lagu jiro wadida gawaarida, Megan waxa ay Lisa u sheegtaa runta nolosheeda. Ugu dambeyntiina waxa ay ku dhacay meel qashinka lagu rido, halkaas oo Megan ay garanayso qofka weeraray inuu yahay Hitler, iyadoo ka aqoonsata catarka ay isticmaashay. Lisana waxaa la geeyay isbitaal shilka dartiid. Meganna waxay rabtaa inay ka tagto qoyskan si aan dhibaato loogu keenin, laakiin Lisa ayaa u sheegtay inay ka xun tahay inay tagto qoyska. Tan iyo maalinta waxa ay noqdeen saaxiibo dhaba. Meganna waxa ay Lisa u sheegtaa nolosheeda sirdoon, waxayna wada aadaan dukaameysi si ay ugu diyaar garoobaan xafladda. Lisa waxa ay la baxdaa coach halka ay Megan la baxda Cash. Megan waxay moodaysaa habeenkan inuu noqon doono mid u gaar ah, laakiin Cash si fiican ula hadli maayo. Waxayna garataa in shakhsiyadiisa ay ku kooban tahay caanimo oo kaliya, sidaa darteedna way ka tagtaa. Waxayna u tagtaa Roger si ay uga codsato qowka ciyaar, laakiin Roger wuu diidaa. Waxa uuna jeclaa gabadhii u timid habeenkii ee Hitler. Labada gabdhood ayaa isku dhacaya, waxayna ku dagaalamaan hoolka iyagoo burburiya waxyaabihii lagu qurxiyay hoolka. Ugu dambeyntiina waxa ay isla galeen jikada, halkaas oo Hitler ku dhowdahay inay midi ku muddo Megan, laakiin Lisa ayaa si lama filaan uga daba timid oo fargeedo ugu muddo lugta. Meganna markaas ayay madaxa kaga dhufatay, wayna miir beeshaa. Markii ay guriga ku soo laabteen, waxay ogaadeen in Victoria ay qabatay iyo kooxdeeda Mrs Larson iyo Barker. Meganna si fiican ayay loo dagaashaa, laakiin markii ay qabteen Lisa way joojisay. Victoria waxa ay ku qasashay nacasnimadeeda, waxayna u muujisaa inay ayadu ahayd gabadhii ugu horeysay ee ka baxday Prescott, nambarkeeduna ahaa number 1. wayna baxsatay sababtoo ah carruurnimadeeda ayay weyday. Waxayna Megan ku amartaa inay la gasho dagaalka foolka-fool ah, si fudud ayayna u guulaysataa. Laakiin si lama filaan ah, Hadman iyo ciidankiisa way soo galeen, waxayna ku dhufteen Victoria rasaasta suuxdinta. Meganna waxay u mahad celisaa Hadman. Dhamaadka filimka, Megan waxa ay joojisaa Roger isagoo gurigiisa ku laabanaya, waxayna la qaadataa duulimaad helicopter ah. Halkaas ayay ku dhammaada. Ku maadsanta daawashadaada muuqaalkan like saar.